الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وأزكى تسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العلي العظيم. أحبابي، waxaan rabaa kelimo kooban insha allahu in aan maaragtay waxa weeye aan iska xusuusino التحذير من الدنيا. adduunyada ilaahay wuxuu ugu talagalay inaan aakhiro u tabcanno. addunya masracatu alaakhira. adduunyadu waa meeshii qof kasta aakhirada ku tabcan lahaa, ma ahan daar xayaato loogu talagalay qofku inuu joogo oo iskaga noolaado. adduunyadu waa meel qof walba uu og yahay inuu ka tegayo. waa meeshii nabigu uu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam, nabigeenna saxaabiga cabdillaahi ibni cumar buu inta sidaa u qabtay garabka ama gacanta ayuu ku yidhi: kun fi dunyaa kaannaka qariibun ow caabiru sabiilin wa cudda nafsaka fi lqubuur. adduunyada waxaad ku xisaabidaa ood ku tirisaa buu yidhi adigoo lamida qof qariib oo kaleeto. qariib markaad maqashana, laysa alqariibu qariibu shaami walyaman, inama alqariibu qariibu alkafani wallaxdi bay culummadu dhahaan. qariib oo kale isku xisaabi. qofka qariib markuu meel ku yahay, qasadkiisu wax weyn adduunyada ugama tacalluqo. qasadkiisu waa xaajada markaa uu leeyahay in caawa la oofiyo, dan kaloo weyn ma leh. noqo adduunyada qof oon danta yartahu markaas uu leeyaho muhiimada asaga qusayda, wixii ku kooban kaliya ka qaadanaya noqo, laakiin adduunyada ha israacinin. wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam: ow caabiru sabiilin buu yidhi, qof wadda gudbaya ama wadda goynaya. qof wadda goynaya hadda qasadkiisu waxay ku eg tahay waddadaas meeshuu ka mari lahay kaliya inuu macnaa uga baahan yahay, dhan kale goynka ma leh. wuxuu kaloo nabigu ku sii dara calayhi salaatu wasalaam: wa cudda nafsaka fi lmowta. naftaada dadka dhinta ku xisaabi. dadka noolba ha isku tirinba. yacnii waxa weeye aakhiradaada uu camal fal ka'annaka tamuutu qaddan. qof birri dhimanaya, qofka haddii maanta la dhihi lahay birri baad dhimanaysaa. qof walba waa ogyahay xaaladdu la kulmi lahaa. marka adduunyada inaanaan israacin ee adduunyada aan ku xisaabinno inaan ka tegayno. adduunyadu inay tahay mid aan kuu daa'imaynin. adduunyada waxa weeyaan waxaa la rabaa qof walbaaba inuu iska celiyo oo xubbu dunyaa aysan waxa weeye aakhiradaada ku dhaafinin. le'anna waxaa la yidhahdaa xubbu dunyaa ra'su kulli khadi uu nabigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam. jacaylka adduunyada la jeclaado oo qofku adduunyo israaciyo, dembi walba meesha uu ka dhasho waxa weeyaan waa jacaylka adduunyada. qof walba maanta hadduu baxfi ku sameeyo dhibka dhacaya, qofka wax dilaya wuxuu wax u dilayo, qofka dembaabaya wuxuu u dembaabayo, qofka wax xadaya shayga sababta wax u xadayo, qofka caasiyoobayo waalid ku caasiyooba sababta ku caasiyoobayo, qofka bidcoobaya sababta ku bidcoobayo, qofka wax qarxinaya sababta. kulligood nin walba waa adduunyo doon, adduunya isalku wada haysaa. xubbu dunyaa ra'su kulli khadii'ah. adduunya waa fitna socota. adduunyada culummada ahlullaahida waxay ku miithaaliyeen oo caawa xuskooda la fadhiyo kuwa la midka ah: addunyaa mithlu dillika. adduunyadu hooskaaga oon bay la mid tahay dheheen. haddii qofku hooskiisa uu isku dayo inta meel qorraxa istaago, hooskiisa inta hooska inuu soo qabto hadduu isku dayo, ma hoos baa la qaban karaa? maanta horda ka daba ordaysa hooskaaga ma soo qaban kartid. adduunya waa sidaasoo kaleeto. nin walba oo isku daya inuu soo qabto, meel cidla unbuu uga soo hari doonaa, ma soo qaban karo. ninkii habeen iyo maalinba u dheelmada, qofkii cibaadadiisa ay dhaafido, qofkii is yidhaha sanadkan meel ka gaar, qofkii is yidhaha darajo ka soo xasili, qofkii is yidhaha mansab ka hel, qof walba meeshii uu macnaha adduunyada uu ka daba dhacayo waxay uga tegaysaa meel cidla unbay uga tegaysaa. haddii waxay dhan culummada ahlullaahida ad ka cararto adduunyada ood istiraa adduunyada ka carar, waa hooskaayoo kaleeto. haddana miithaalkaasoo kaleeto, hooskiisa qofkii ka carara miyaa hoosku haraya? ka hari maayo. maantao dhan wuu ku daba joogaa hooska haddaad ka carar maagto.
adduunya hadda qofka ka carabagana ka hari mayso oo waaba dhex joogtaaba haddaad soo qaba istiraana ka sooma qaba kartid oo waa kaasii horreeda mar walbaba adduunyada waxaa loogu talagalay qofku inuu ka dhigto waxa weeyaan maa axsana addiina waddunyaa ida ijtamaca wamaa aqbaxa alkufra waaliflaasa gaalnimo iyo faqri qofka hadday u kulmaan macnaha diin la'aan iyo adduunya hadday isu kaa daranto oo diinta ilaahay uu macnaha qofka dhaafiyo adduunyana uu helo ama xataa adduunyadii oo waayo faqri oo ku dhaco wax ka liitaa ma jiraan haddii laakiin adduunyo wanaagsan oo xalaal ah iyo diintaada aad isku ilaashato ma axsana addiina waddunyaa ida ijtamaca adduunyada waxaa la rabaa adduunyadii lagama dhex bixi karo waa lagu dhex jiraa laakiin adduunyada inaan lagu fidnoobin adduunyada inaan la israacinin adduunyada inaan xaraam lagu raadinin adduunyada inaan dembiya been lagu raadinin adduunyada inaan khiyaano iyo waxa weeye afmishaarnimo lagu raadin adduunyada inaan isdabamarin lagu raadin adduunyada dhac xoolo iyo dhac maal islaameed iyo guryo islaameed iyo dhul islaameed iyo khiyaano iyo yacni wax walbo adduunyaad been ku raadiso waxaa kuu dambaysa inaad oon ka dhimanayso markaad ka dhimatan in lagu xisaabi doono oo maalkii adigoo sida waa kii nabigu dhahay calayhi salaatu wasalaam qiyaamada qofku markuu yimaado neef arya hadduu qof ka dhaca ama ka dulmiyey asagoo sida oo tunka ku sida unbuu imaan doona hadduu neef geelo qaaday hadduu neef loo qaaday dhul hadduu dulmiyey man dalama qiida shibrin waa kii nabigu dhahay calayhi salaatu wasalaam yacnii taako qadar la eg oo dhul islaameed oo qofkii dulmi u qaata toddobada dhul oo isku xigta isdul saaran baa qoorta loo soo geliyaa ilaahay qoorta ugu xiraa waa kii nabigu dhahay calayhi salaatu wasalaam marka qofkii adduunye dulmi ku qaata dulmigaas maalin oonbuu ka soo macnaha laga soo megi doonaa weeye waxaan iskaga digaynaa marka adduunyada intaana waa intii ahlullaahida laakiin inaan dhammaan isgaarsiinno in aanan adduunyada qalbigeenna aysan ku weynaan adduunyadu tilmaamaha laga bixiya noogu filan inaan ku macnaha waantoonno adduunya waxaa la yidhi markii la yidhaha addunyaa ma'khuudatun min addanaa'ati ow min addunawi min addunuwi baa laga soo qaatay waa wax dhow oo wakhtigeedaa iska dhowba ama waa danaa'a laa keeno waa shay hoosayda iyada dhanba oo aad iskaga hoosayda weeyaan addunyaa ma'khuudatun min addunuwi ow min addanaa'a waxaa laga keenay asalkeeda magacaan shay hooseeya inuu yahay ee shay liita oo xaqiran oo danaa'a ah ama inuu yahay wax iska dhowo taymkeeda iyo wakhtigeedaaba iska dhowba saacadaha wareegaya markaad aragtiin adduunyada ku xusuusta bal saacad halkaa saacad baa hadda ku xidhan meel walboo saacad ku xidhantay markaad soo marto waxaad ogaataa daqiiqadda wareegaysa adiga inay ajashaadii tahay naftaada waa ajashaadiiba halkaa haddii lagu fariisiiyo ee lagu yidhaahdo intaasoo kun oo daqiiqo oonbaad adduunyada noolaan laheed xisaabi markay hadda saacaddaan imaanayna saacaddii maqribka aan tukannay iyo wakhtigaan aakhira u sii dhowna daqiiqadaha hadda naga go'ay cumri nooguma siyaadin waa naga sii yaraadayba le'anna waa kaa sii dhammaanay adduunyadu say kaaga dhammaanayso waxaa lagu leeyahay saacaddiiba kaa dhammaatay walan yu'akhira allaahu nafsan idaa jaa'a ajaluhaa mar haddii muddadii la gaadho iyo madashii lagu xidhay ma awoodda inaad tidhaahdo daqiiqada laygu sii daro ma awoodid qof walba marka insha allah waxaan isku waaninaynaa inaan uga faa'iidaysanno kulamaadka iyo ducada iyo ziyaaraadka ahlullaahida aakhirada inaan ku xusuusanno oo sida ayagu adduunyada uga tagin annaguna aan uga tegayno waddadii wanaagsanaay oo ay mareen inaan marno waa inaan macnaha waxa weeye ku dadaalno khayrkii waa inaan uga dayanno qur'aankay akhri jireen sadaqadii ay bixi jireen islaaxii ay ka shaqay jireen ahlullaahida ay jeclaayeen xubbigii nabigu isaanoo kale mashaaikhdooda u weynay jireen sala allahu calayhi wasalam xubbigii saalixiinta ziyaartii iyo ducadii khayrkaas inaan mashaa'ikhda uga faa'iidaysanno nabigeennu calayhi salaatu wasalaam adduunyada miisaaladu ka bixiya waxaa ka mid ah maalin bay waxay soo mareen nabiga iyo asxaabta wada socda neef aryahoo baktiyey oo dadkii uu ka dhintay ama ka baktiyey meel bannaana iska dhigeen oo iska tuura iska fogeeyeen markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam adduunyadu neefkaa baktiyey oo meesha yaala baktiga ah ilaahay agtiisa adduunyada waa uga liidataa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam adduunyada kasii liidataa buu yidhi wuxuu kaloo nabigu ku miisaaliyey calayhi salaatu wasalaam qofku markuu badda fartiisa sidaa markuu biyaha u geliyo haddii gacanta uu soo celiyo qoyaanka gacanta soo raaca intuu leegyahay baddii muxuu ka soo qaaday waxba kama soo qaadin qofka markii loo fiiriyo adduunyada markuu macnaha waxa weeye aakhirada marka laysku fiiriyo adduunyada waa intaasoo kaleeto aakhiradii hadda waa nicmada iska daa'imaysa adduunkiina waa wax yar
oo haddaad wax yaraad ka qaadanaysa adiga naftaada saacado yar maalmo yar sanad yar kooban oo cumrigaaga dhan iska dhammaanayo weeyaan marka waxaan isku waarinaynaa aakhirada inaan insha allah u diyaar garowno oo qof walbaaba aakhirada uu camal falo salaada ilaahay in lagu dadaalo soonka in lagu dadaalo sadaqada in lagu dadaalo barashada cilmiga in lagu dadaalo caqiidada ilaalinteeda in lagu dadaalo tarbiyada awlaadda in lagu dadaalo qof walba waa ogyahay adduunka markuu ka tago salaadii uu ka tegay qofkaasoo qadaynaya male dad baaba hadda soo baxay qadaha lagaama rabo dad ayaa arkayo macnaha waxa way cajiib salaadii ka tagtay qadaheeda lagaama rabo qofka macnaha ku andacoonayahay waa dembi aan caadi ahayn weeyaan culummada waxay ku ijmaaceen sida kutubta ku qoran biijmaaci man yuctadu biijmaacihi qofka hadduu salaad ka tago waajib inta lagu leeyahay xataa sunna inuusan loo ogolayn sunna xataa ma aadin karo qofka soon waajiba lagu leeyahay soonka wadaca soonka carafo soonka yoomu caashuraa soonka ayaamulbiidka soomka isniinta soomka khamiista kulligood ma soomayo ilaa waajibka qadihiisa uu iska dhammeeyo waajibba haddii lagu leeyahay inta waajibkaas aad hubto in lagugu leeyahay wax sunna oo lagu ogolyaha ma leh waxaa taas ka beddelan hal maalin oy kuu bannaanta inaad soon la'aan aantana ma jirto haddaadan cudurdaar kale aadan haysanin kaliya waxaa lagu ogol yahay markii cudurdaar aad leedahay oo aadan awoodin soonkii hadda inaad qadihii samaydo qadahaas ilaa aad ka dhammaydo xormatiid waajib dayn baa lagu leeyahay daynta ilaahayna wax la oofiya iyada ugu horraysa salaaddu waa sidoo kaleeto salaad qadaa qofka lagu leeyahay ama salaad ka tegey marka hore wuxuu cudurdaar ku heli karaa hadduu halmaan horta uga tago sida xadiista nabiga ku qoran calayhi salaatu wasalaam hadduu halmaan uga tago asagoon ku jirin wax dembi ah weliba oo aan wax dembiya ku jirin hadduu iska halmaamo salaaddii halmaankaas dembi ma uusan gelin ka tegidda salaadda uu ka tegey laakiin maxaa laga rabaa inuu iska soo qadeeyo waa miduu halmaanka uga tego fiirso middii hurdada uga fakatay qadeedii waa laga rabaa kas midda looga tago taasu waaba dembi caadiyaba kas midda looga tago midda kas looga tegay qadaheeda lagaama rabo dadka dhahaya ka warran tii halmaanka looga tegay axaadiista ku qoran nabiga in la soo qadaynayo calayhi salaatu wasalaam middii hurdada kugu dhaaftay oo adoon waxba ogayn oo inaad tukato caawa u diyaara baad waxaad indhaha kala qaaday barqadii qoraxdii soo baxday hadda iska qaday baa lagu leeyahay duhur baan xataa gaarsiina ma dhihi kartid hadda waana iska qadaydo taymka kugu soo horreeyood hesho waa inaad waajibka ilaahay iska guddaa lagaa rabaa marka salaadaha qadahoodu waa shay waajiba qofkii salaad ka taga hadduu kas uga tegana waa dembaabay ilaahay waa inuu u tooba keenaa wa huwa aladii yaqbalu atawbata can cibaadihi wa yacfuu can asayi'aati wa yaclamu maa tafcaluun ilaahay haddaad u soo laabato oo dembiga aad gashay ka soo laabato oo salaadda ilaahay inaad tukanayso go'aansato oo dembigii aad ka fuuqdo salaad la'aanta ahaa ood ka nadaamooto ka shallaydo ood casmido inaadan weligaa dambe u laabanayn salaad dambe ka tegaynin oo salaaddiina aad iska qadaydo ilaahay dembigii aad gasho wuu kuu cafinayaa wa huwa aladii yaqbalu tawba cafintuba cidla ma aha waana intaasoo wadda soo martay ogaaw oo wadda saxa aad ku tooba keentaa lagaa rabaa markaasaa lagu leeyahay ilaahay wa huwa aladii yaqbalu tawbata ilaahay waa midka toobada aqbala can cibaadii addoommadiisu markay u soo laabtaan oo hadday salaad ka tageen salaaddii bay qadaynayaan ilaahay bay u soo laabanayaan soonkii bay la imanayaan waajibkii ay ka tageen bay soo celinayaan ilaahay dembigii bay ka fuqayaan addoommadiisu markay u soo laabtaan ilaahay waa midka aqbala baa la yidhi wa yacfuu can asayi'aat xumaanyaalka ay galeenna ilaahay waa midka u cafiya oo dembigu hadduu dembi hadde kabiire ahaana markii aad tooba keento waa kaasoo hadda waa lagaa dhaafayba hadduusan gaalnimo ahayn in allaha laa yakfiru an yushraka bii wa yakfiru maa duuna daalika laakiin maxaa lagu sii qayday maa duunada nafteeda liman yashaa'u mashii'a ay culammadu ku qaydeen halkaasi ku qorantaa la yidhi marka khayr allah idin siiyo waxa weeye waxaan insha allahu kelimadeeda ku soo koobayaa aan maaragtay waxa weeye adduunyada qof walbaaba meeshii waxaan joogna ugu fidna badneed meelihii ugu qatarsanay baa la joogaa fitantii iyo maraysa wakhtiga hadda la joogo casriga ah oo qanawaadkii fadaa'iga ahaa iyo shayddaankii meel walba uu kaaga hor muuqdo oo dembigii intii la sheegoo dhan ay waddada ku hor taagantahay oo guriga ay kuu dhex taallo oo moobeelkaaga ay kugu dhex jirto oo meel walba kugu mashquulinayso oo salaaddii ku halmaansiinayso oo salaaddii ku dhaafinayso oo qalbi qallayl kugu ridayso dembigaas nin walba inuu la dagaalamo iyo gabar walbaana laka raba insha allah oon ilaahay uga cabsanno adduunyada fidnadeeda inaan ilaahay uga baqno oon ilaahay u soo laabanno wixii naga khaldaba ilaahay uga soo laabanno
wixii noo saxan oo noo wanaagsan aan ku sii dadaalno waxaan kaloo isku baraarujinaynaa xuska waalidiinta iyo mashaayikhda iyo ahlullaahida insha Allah inaan aad iyo aad insha Allah u xoojino mashaayikhdeeni waaweynaaba hadda soo gelayo noo imaanaya mawduuca Sheekh Muxudiin baa soo gelaya sida dabcan maaratan culimadu noo soo gudbiyeen intaas baan rabaa inaan ku soo koobo khayr Allah idin siiyo ilaahayna ha noo aqbalo hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh